sanad walba waxaa rabtaa noloshaada inaad isbedel weyn ee muuqda aad ku samayso. qofkii shalay ahaa maahane inaad waxaad rabtaa qof kala noqoto, inaad wixii riyadaadii iyo rajadaadii ee ku rumooda. haddana mar walba waxaa samaysaa isku day muhiim ah. waa 5 arrimood oo muhiim ah. marka ugu horeyso waxaa lagaa rabaa in aad naftaada waa inaad barataa. shaqsigaa tahay waa inaad taqaana aniga nafteyda maxaa ku habboon maxaasan ku habboonayn, waa inaad og tahay taasna aad barata. shaqsiyan inaad isku barato waa muhiim, waa qodobka ugu muhiimsan waa. okay, qodobka labaad waxaa waaye inaad ilaahay isku xirto, adkaartana mar walba aad akhrisato, taladana ilaahay u dhiibataa. adkaarta waxa waaye waa guusha nolosha haddaa rabtid furaha dhan oo nolosha araadinaysid waa adkaarta iyo ducooyinka iyo ilaahay u dhawaashada. okay, qodobkeena saddexaad asagana waxaa waaye waa qodob xasaasiya oo muhiima oo asna qayb kaa qaadanayo. qodobkan waxaa waaye saddexaad, waa inaad og tahay, waa inaad ahaataa qof hadaf leh, ujeeda cad leh inaad tahay. waxaan samaynayo waa inaan ogahay waxaan samaynayo sababtaan u samaynayo iyo sababtaan u rabo. waxaan samaynayo sababtaan u rabo iyo sababtaan u samaynayo markaa ku leeyahay waa inaanan wax bilaa macno aanan ku daalin. waxaan aan samaynayo oon rabo inaan sameeyo maxaa iga soo galay, maxaan faa'iido ku helaya, muxuu iga bedelayaa, muxuu igu soo kordhinaya. waa inaad taqaana wax bilaa macno ee waqtigaaga kaa luus garaynayo waqtigaaga kulmin. waqtigaagana waa inuu ku xisaabsamada. waqtiga waa muhiim. waqtigaaga cimrigaaga kugu socdo, wax walba kugu socdo, isbedel walba kugu imaanayo. marka waqtiga aad dhalinyarada tahay waxaad ka faa'iideysan weysid, waqtiga markaa weynatay kama faa'iideysanaysid. so maanta waxaa waaye waa inaad tillaabadaas inaad qaado ay muhiim tahay inaan isla ogaano. okay, maxaa kaloo muhiim inaan isla ogaano? qodobkeena afaraad waa inaan jadwal leeyahay. inaan leeyahay waxaan rabo in aan sameeyo qorshahayga waa inay iigu jirtaa. maanta labadii wiigba aniga marban wax qortaa, 3 wiigba marban wax qortaa. waxaan u baahanahay haddaan ballan leeyahay, haddaan dhaqtar leeyahay, waxay kaa caawinay inaasan culays badan ku saaramin oo wixii aad samaynayso ay kuu qoran yihiin ood ogtahay in waxaan aad samayn kartid ay kuu fudud yihiin, way kuu fududaanay. yacni waxa kuu fududaana noloshaadii maalinlihiya kuu fududaanayso because kana soo qabsanay ballantaadii aadee ilmahaaga dhaqtar geynay. wax dhan waa balayn fudud oo kuu diyaarsan. laakiin balaynka hadduusan kuu diyaarsanayn caajisa ku imaanayo, meel wax ka qabatay mataqaan, meel wax ka bilowday mataqaan, ilowshaha kugu badanayo, wixii waa iloobi karaysa. laakiin markaa jadwal leedahay halka kugu dhigan yahay maanta balaynkaaga markaas waxaas usoo kacdid oo bixi rabtid guriga ka bixi rabtid, waxaad fiirinay maanta maxaan leeyahay horta qorsheyga maanta muxuu ahaa, buugaagaa fiirinaysaa. haddii derbi kugu dhigto derbigaas kugu yaala, albaabka kugu dhigtay ayadana way ku caawineen jadwal inaad nolosha lahaato. okay, qodobka kale isagana muhiimka maxaa waaye dib u dhigashada. waxaa la leeyahay dib u dhigasho. waxaa rabaa maanta inaan wax bilaabo, laakiin maanta ma samayn kari, maalin hebel aan rabaa inaan bilaabo, sanad hebel waxaa rabaa inaan nolosheeda wax ka bedelo oo waxaas aan bilaabo. dugsiyo kala bilaabe, dugsiga dib ama maanta waxaaba laga yaabaaba gurigaaga hawsha kuu taalo, hawl baad rabataa inaad qabato. waxa aad rabtid maanta in aad qabatid kawaran haddaan beriyaan qabanaya, wax soconaya ma ahan. waxaad dib u dhigataa adigana dib bay kuu dhigayaan. isla xilligaas wax walba oo tahamisid oo islaada waxaa waa wax wanaagsan, xilligaasayte samey xilligaasayte. kabahaaga gasho, orod, waxaasayte wax kuu muhiima raadi, dhexda xiro. ayadana waa very important. okay, midaana ayadana kasii muhiimsan waa qodobka 6aad kuma uu jirinin, mana rabi videoga inuu dheeraado. so marka qodobkan waa ugu dambeyn. qodobkanayta isagana wuxuu kaa caawinayaa yacni in aan 5 qodob on kuu soo sheegaba aad ka dhabayso ayuu kaa caawinayaa. qodobkan waxaa waaye in aad go'aan qaadato. haddaadan maanta go'aan qaadan waxba ma samayn kartid, tilaabo ma qaadi kartid. go'aan haddaad qaadatid laakiin waxaan oo dhan waa kasoo dhex bixi karaysaa, waana ka mira dhalinaysaa. marka ta ugu 6aad oo aniga idinkugu soo daray oo budgetka iigu jirinin wuxuu ahaa go'aan qaadashadu waa muhiim. taana waa kaasaa. videogeena intaasuu ku egyahay. channelkana wuxuu noqon doonaa channel aan wax badan ka wada faa'iidino. dhiirigelintana waa xaggeena. haddii aniga maanta aan dhiirigelisaan waxaan mar walba ka fikirayaa sidaan wax wanaagsan oo waxaan kasii wanaagsan aan u samayn lahayn, sidaan isku bedeli lahayn, wax walba oo nolosheena naga caawin karo in aan anigana ku dhiirado.
dhiirigelinta marka waa muhiim qof walba maanta oo meel gaaray qof walba maanta heer sare gaaray waxaa gaarsiiyey dadkiisa gaarsiiyeen maanta idinkaa dadkayga channelkana waa channelkiini insha Allah waxaa inoo balana videogan video xigo hadday habeen ku taana habeen wanaagsan waxay ku tahay wanaagsan